sida qofka bini aadamkiisa wax qabto wuxuu u baahan yahay saddex shay waa qalfoofka sare iyo qudha ku jirta iyo qorshe uu ku hawlgalo Somaliland qalfoofkeedu dhameystireen waa hay'adaha dawliga ee noo dhisan qudha ku jirtana waa shaqaalaha dawladda ee waxa ay doonayno in noo qabtaa qorshuhuna waa siyaasadda hadda madaxweynaha jooga ku hogaamiyo waxa maanta farxad weyna qudhii qaranka ku jirtay inay horteena ku dalin jabinayso isla markaana ay noqon doonaan cudud qarankeena ku soo beertaa oo quruxdu awalba ku socdo kor uga sii qaada saaka hadalkeenu kooban saddex shay baan ku soo koobay mid waa duco midna waa dardaaran midna waa digniin marka hore waxaynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ay noo soo qalin jabiyay inuu ka dhigo himilada horumarka qaranka hiigsanayo kuwa kaalin weyn ka geysta oo wasaaradihii iyo hay'adihii dawladda loo tababaray markay ku noqdo cudud wanaagsan oo aqliga iyo cilmiga lagu kabay ay bariba ka muuqato korukac qaranka hanaankiisa ay kor uga sii qaadaan ducadaas kadib dhammaan waxaan ku codsanayaa qalin jabiyaasha 214 inay madaxweynaha hortiisa istaagaan waxaan idin kula dardaarmayaa mudanayaal ilaahay subxaanahu wa ta'aala hortiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hortiisa iyo mudanayaasha meel walba idin kala socda waxaan hortiisa idin kula dardaarmayaa in cilmiga la idin baray aad cududda qarankiina ku anfacdaan ummadu waxaad u adeegi doontaan dunidu daaqadaha ka dallacatay oo deeq iyo deyntoona midna ka helin laakiin isku haleynaya qudha qarankiisa waxaan idinku dardaarayaa qof walba oo muwaadin hortiina imaada inaydaan hayb xisbiso iyo wax kale aydan ugu adeegine aad ugu adeegtaan baadi sooca ugu sareeya oo inuu yahay qof qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhashay ummadu waa ab iyo isir iyo ummad wada taala qofnimo waa dhaaftay qabiilna waa dhaaftay saaka qaran baa lagu tababaray qarankaagu ha ku deeqo cilmiga aad baratay qofnimadaada iyo qabiilkaaga kor ha u dhaafo war qaran baad u tababaratay qarankaaga wax gaarsii ugu dambeyn golaha wasiirada iyo cid walba la socota waxaan ku dardaarayaa cududdaada soo tababaray maanta cilmigoogu waxba qaban maayo haddii aydan kal furan iyo laab furan aydan ku qaabilin cilmigu waxba ma tara haddaan caqli lagu darin cilmigaa maanta aan ku soo hubaynay noloshu waa halgan aqoontuna waa hub cilmigaa maanta aanu ku soo qalabaynay yaana lagu dhaafin hayb kale yaan kor lagu iskugu dhaafin wax kale cilmiga iyo waxa la bartay ha noqdo waxa ummadda ku karaamaysan saaka qalin bay barteen waxaynu doonaynaa qalin aan qabiil lahayn cilmi bay soo barteen waxaynu u baahanahay cadaalad ciil lahayn sarreyn bay u baahanayna sarreyn aan si ku dhisnayn intaas ugu adeega markay wasaaradiina ku soo noqdaan